waxaa inoo socday muuqaaladeen imtixaanaha ee aan uga hadlaynay wax loo yaqaano vital signs ama calaamadaha nolosha oo ah calaamadaha cadeynayo qofka inuu jirkiisa si saxan u shaqeynayo. marka muuqaalkii hore waxaan ku sharxay wax loo yaqaano body temperature oo ah heerkulka jirka, balse muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku sharxo wax loo yaqaano pulse rate ama heart rate oo la micno ah garaaca wadnaha. ee soo dhawow oo ila lameyso muuqaalkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada dhamaan saaxiibayaal. si aad muuqaalka hordhiciisa ku aragtayba, muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku sharxo wax loo yaqaano pulse rate ama heart rate oo la micno ah ama loo yaqaano garaaca wadnaha. marka hore waa maxay pulse rate? pulse rate ama heart rate wax loo yaqaano waa daqiiqadii inta jeer uu wadnaha qaraaca sameynayo. sida caadiga ah wadnaheena wuxuu sameeyaa laba dhaqaaq oo kala duwan. labadaas dhaqaaq waxaa loo kala yaqaanaa contraction iyo relaxation oo ah markuu wadnaha isku soo ururayo iyo markuu wadnaha kala baxayo. dhaqaaqa koowaad ee loo yaqaano contraction waa markuu wadnaha isku soo ururo oo dhiigga u diro qaybaha kala duwan ee jirka. dhaqaaqa labaad oo wadnaha uu sameynayo waa markuu uu kala baxayo oo relaxation ayaa loo yaqaanaa. markaasi dhiigga kala duwan ee jirka ka imaanayo ayaa wadnaha iskugu soo ururayo. sida caadiga ah labadaas dhaqaaq ayuu wadnaheena sameeyaa. hadda uu soo noqono pulse rate ama garaaca wadnaha inta badan waxaa lagu cabiraa ama halbeega lagu cabiro waxaa loo yaqaanaa beats per minute. sidoo kale dadka inta badan waxay isku qaldaan wax loo yaqaano blood pressure iyo pulse rate. runtiina waa laba shay oo aad u kala duwan. blood pressure waxa loo yaqaano waa xawliga ama awoodda uu dhiigga ku marayo xididada dhiigga. muuqaalka xiga ayaan ku sharxi doonaa wax loo yaqaano blood pressure-ka. sidoo kale pulse rate-kane waa daqiiqadii inta jeer uu wadnaha qaraacmayo. runtii waana laba shay oo aad u kala duwan. waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah halkee ayaa laga cabiraa garaaca wadnaha. meelaha laga cabiro garaaca wadnaha aad ayay u badan yihiin, balse muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa meelaha ugu caansan ee laga cabiro garaaca wadnaha. meesha ugu horeyso ee laga cabiri karo garaaca wadnaha waa meesha loo yaqaano branchial pulse oo ah gacanta qaybteeda dhexe oo halkaas. si aad sawirka ugu jeedidbo, branchial artery waxaa laga cabiraa gacanta dhexbartankeeda sababtoo ah waxaa maro branchial artery wax loo yaqaano ama halbowlaha branchialka. marka haddii aad labadaada far soo qaadatid oo si cadaadis ah u saartid gacantaada qaybta dhexe, waxaad dareemi doontaa garaaca ama garaaca wadnaha ayaa dareemi doontaa. sidoo kale halka labaad ee laga cabiri karo garaaca wadnaha waa halka loo yaqaano radial pulse oo halkan. radial pulse waxaa laga cabiri karaa suxulka ama suulka hoostiisa. sababta looga cabirayna waa waxaa ku yaalo wax loo yaqaano radial artery. sidoo kale garaaca wadnaha waxaad ka cabiri kartaa qoorta ama wax loo yaqaano carotid pulse ayaa loo yaqaanaa. carotid pulse waa halkan qoorta. labadaada far ayaa soo qaadanaysaa, waxaa saaraysaa ama aad ku aadinaysaa carotid artery. sidaas ayaa ku dareemaysaa garaaca wadnaha. sidoo kale number 4 waxaad ku cabiri kartaa garaaca wadnaha adigoo adeegsanayo wax loo yaqaano stethoscope. stethoscope-ka ayaa dhagaha gashanaysaa, kadibna qofka ayaa dhageysanaysaa wadnihiisa. sidaasna waad ku cabiri kartaa garaaca wadnaha. waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah waa maxay tirada caadiga ah ee laga rabo inuu garaaca wadnaha noqdo daqiiqadiiba. saa hore u soo sheegnayba, garaaca wadnaha inta badan waxaa lagu cabiraa daqiiqad, waana daqiiqadii inta jeer uu wadnaha qaraacmayo. marka tirada caadiga ah ee laga rabo garaaca wadnaha way ku kala duwan yihiin dadka. oo tusaale ahaan garaaca wadnaha cunug yar iyo qof weyn isku mid ma noqonayo. sidaas shaashada ugu jeedidbo, tirada saxda ah ee laga rabo qofka caadiga ah inuu garaaca wadnihiisa noqdo waa sidan. tusaale ahaan saan sheegnay da'da dadka way ku kala duwan yihiin. tusaale ahaan cunuga ka yar 1 sano waxaa laga rabaa garaaca wadnihiisa inuu noqdo 110 ilaa 160 beats per minute. sidaas si la mid ah qofka u dhaxaysa da'diisa 1 sano ilaa 2 sano waxaa laga rabaa garaaca wadnihiisa inuu noqdo 100 ilaa 150. sidoo kale
qofka da'diisa ay tahay 2 sano ilaa 5 sano waxaa laga rabaa garaaca wadnihiisa inuu noqdo 95 ilaa 140. sidoo kale qofka garaaca wadnihiisa uu yahay 5 sano ilaa 12 sano waxaa laga rabaa garaaca wadnihiisa inuu noqdo 80 ilaa 120. sidoo kale dadka ka weyn da'da 12 sano ama qaangaarka ah ee adultska ah waxaa laga rabaa inuu garaaca wadnahooda noqdo 60 ilaa 100 beats per minute. waa tirada caadiga ah ee laga rabo qof walba inuu noqdo garaaca wadnihiisa. adigoo gurigaaga joogo as cabiri kartaa. sidoo kale haddii aad tagtid goob caafimaadne waa laga cabiri karaa. halkaas ayaan kusoo koobaya muuqaalkii koobnaay ee aan kaga hadlayay pulse rate ama heart rate oo ahay garaaca wadnaha. muuqaalka xiga waxaan ku sharxi doonaa wax loo yaqaano blood pressure oo ah xawliga dhiigga ama awoodda uu dhiigga ku marayo xididada dhiigga. waa inoo muuqaalka dambe waxaan ku rajaynayaa khayr iyo caafimaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.